soo dhawaada qiyaarta sheekadina maanta waxa ay ku saabsan tahay El Chapo. El Chapo wuxuu ahaa madaxweynaha daroogada ee dalka Mexico waana dadka ugu waaweyn ee daroogada ka ganacsi jiray taariikhda wuxuuna madax u ahaa koox lagu magacaabi jiray Sinaloa Cartel. El Chapo wuxuu ahaa nin aad u dhiiran wuxuuna hogaaminayay mid kamid ah kooxaha adduunka ugu weyn ee daroogada ka ganacsada waxa uu ka sameeyay $16 bilyan waxa uu noloshiisa ka baxsaday xabsiga laba mar isku dayiisi ugu horeeyay oo ka baxsaday xabsiga waxa uu ka baxsaday xabsi ku yaala wadanka Mexico sanadka markuu ahaa 1993 El Chapo xabsiga oo ku xirnaa ee ku yaala wadanka Mexico waxa uu kamid ahaa mid kamid ah xabsiyada ugu ilaalada adag ee wadanka Mexico wuxuuna ka baxsaday sanadka 2001 bishii January 19keedii El Chapo ka baxsashadiisii xabsiga waxa qayb ka qaatay waardiyaasha xabsiga oo uu lacag siiyay waxa uu ku fakaday gaargacanka alaabta wasaqda ah lagu qaado asagoo dhex galay intaas kadib waxa uu banaanka joogay ilaa sanadkii 2014 isha dhaqaale ee ugu weyn ee El Chapo daroogada uu geen jiray waxay ahayd wadanka Mareykanka sida daraaddeed dawladda Mexico iyo wadanka Mareykanka waxa ay gacan ka geysteen soo qabashada El Chapo wuxuuna Mareykanku ku bixinayay lacag fara badan si uu u degto ama uga hortago muqaadaraadka oo El Chapo soo gelinaya wadanka Mareykanka sanado badan oo la raad gurayay El Chapo ugu dambeyntii waa soo qabtay waxaana gacanta ku soo dhigay dawladda wadanka Mexico wadanka Mareykanka waxa uu ka codsaday inay gacanta u soo geliyaan El Chapo ayaga oo ka baqaya inuu mar kale baxsado laakiin dawladda Mexico ayadoo difaacanaysa sharafteeda waxa ay u diiday inay ku wareejiso El Chapo ayadoona tiri inuu san mar dambe baxsan doonin El Chapo waxay u maleynayaan markii ugu horeysay inay ku adkaa doonto El Chapo ka baxsashadiisa xabsiga waxayna geeyeen mid kamid ah xabsiyada ugu ilaalada adag wadanka Mexico 2014 markii El Chapo xabsiga la dhigay waxay dawladda Mexico ku fikiraysay inay ku adkaa doonto ka baxsashada xabsiga El Chapo waxayna si joogto ah u bedeli jirtay ciidanka waardiyaha ka ahaa El Chapo dhanka kale ciidamada El Chapo ee daroogada waxa ay wadeen dadaal kale ay ku soo badbaadinayaan madaxweynahooda wuxuuna amar ku siiyay inay qodaan god dhirirkiisa uu gaarayo 1 kiiloomitir inta badan qodista godkaas dheer waxay u adeegsanayaan gacmahooda taas cagsigeeda hadii uu adeegsan lahaayeen qalabada loogu talagalay in lagu qodo godadka waxa ay ka baqeen inuu fashilmo programka waxa El Chapo oo tartan kula jira waqtiga waxa soo gaartay fariin sheegaysa in El Chapo laga bixi doono xabsiga laguna bedeli doono xabsi kale waxayna bilaabeen qodida godka si ay xabsiga uga saaraan madaxweynahooda kooxda El Chapo waxa ku gadaanaa caqabado badan oo ay kamid tahay qodida godka sababtoo ah ma fududa in meel cidla la iska qodo waxayna taasi keenaysaa shaki weyn oo laga shakiyo barnaamijkana meeshaas uu ku fashilmo ugu horeyntii waxa ay sameeyeen inay iibiyaan dhul meel u dhow meel xabsiga uu ku xiran yahay El Chapo dhulka markii iibiyeen kadib waxa ay ka dhiseen guriyo ugu dambeyntiina waxa ay bilaabeen shaqadoodii ahayd qodista shaqada qodista dhulka waxa ay wadeen habeen iyo maalin si ay uga soo saaraan El Chapo dhanka kale El Chapo waxa uu ku niyadsanaa inuu mar dhow ka bixi doono xabsiga El Chapo waxa uu bilaabay in dhaqamadiisa wax uu ka bedelo oo nala saaxiibo ilaalada xabsiga laakiin ayagu waa ay ka shaki qabeen waxayna ogaayeen in mar El Chapo uu isku dayi doono inuu baxsado El Chapo walwalka ugu weyn waxa uu ahaa in laga bedelo xabsiga ayadoo aysan dhamaanin howsha iyo wadeen kooxdiisa kooxda El Chapo waxay dadaal badan ku bixiyeen qodida godka oo dhirirkiisa markii la qoday uu ahaa 10 mitir waxay ahaayeen kuwa shaqeeya habeen iyo maalin waxayna ugu dambeyntii ku soo dhameystireen 16 bilood godka dhexdiisa waxa ay ka sameeyeen wado tareen oo ay saareen tareen yariis oo ku shaqeynaya motorka mootada si ay u fududaato baxsashada xawaaraha lagu qaadayo El Chapo sidoo kale godka waxa ay ku xireen qalabka oksijiinta si aysan hawada ugu yaraanin godka ugu dambeyntii 12 bishii July sanadkii 2015 godkii la qoday waxa uu soo gaaray meesha uu kaga jiray xabsiga El Chapo waxaana xabsiga ku xirnaa kaamiradaas oo duubaysa El Chapo ama lagu ilaalinayay waxaana jirtay qayb yar oo markuu qubeysanayo kaamirada uu ka galo waxayna kooxdiisu ku soo aadisay meesha uu ka galo kaamirada El Chapo isla markiiba waxa la saaray mootadii qaabka tareenka camal ee loo sameeyay waxaana la siiyay dhar sidaas ayuuna ku baxsaday oo ku dhigay taariikh kamid ah kuwa ugu waaweyn ee ka baxsashada dhanka xabsiga nasiib darro mar kale ayaa la soo qabtay El Chapo 2015 waxaana fashilay dad deegaanka ah ayagoo arkay dad ku hubeysan hubcul culus ugu dambeyntiina waxa ay waceen booliiska waxa ay hakakareeyeen taleefanada iyo adeegsanayeen ciidankan waxayna maqleen warbixin oranaysa waxa soo dhow ayeeyo ugu dambeyntiina waxa ay fahmeen inuu yahay qofkaas qof muhiim ah ama El Chapo uu noqon karo asbuucyo badan oo ay booliiska kor kala socdeen dhaqdhaqaaqa gurigaas waxa yimaaday El Chapo kadibna waxa ay ku qaadeen weerar waxa ay dileen koox badan oo ka tirsan ciidankii El Chapo laakiin El Chapo laguma guuleysan in la qabto waxa uu ku fakaday god ka qodnaa guriga oo ay ugu talagaleen inuu ku baxsado El Chapo isla markii waxa uu qaatay gaari
muddo yar kadib waxaa istaajiyey 4 booliis ah oo ka tirsan booliiska federaalka. El Jabo waxa uu isku dayay inuu laaluusho laakiin waa uu ka diiday. ugu dambeyntiina waa uu u hanjabay, laakiin waxa ay waceen saraakiisha ayaga ka sarreeyay. saraakiishii booliiska waxa ay tala ku bixiyeen in El Jabo lagu qariyo meel inta kaga imaanayo gurmad, sababtoo ah waxaa laga baqayay inay weerar ku soo qaadaan ciidanka arxaka daran ee El Jabo si ay u furtaan madaxweynahooda. howlgalka waxa uu noqday mid guuleysta, waxaana la soo qabtay El Jabo. ugu dambeyntii dowladda waddanka Mexico waxa ay ku wareejisay dowladda waddanka Mareykanka si loogu maxkamadeeyo waddanka Mareykanka. maanta El Jabo waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaala waddanka Mareykanka.